tan ugu muhiimsan waa taa guddoonka baarlamaanka waa xibin sharafeeda loo siiyey xibin sharafeeda loo siiyey guddoon la doortay ma aha inay lagu danaysto oo daddan leey ah ay muxuu ahay dantooda ka fushidaan ma aha wax la aqbali karo ma aha wax haddii aad da'da lagu geeyey haddii xoogaha maskaxda ay cuslaatay waa goonigeeda takhaatiir baan u dilaynaa dad daa'iraan noo hogaaminaya laakiin waxa aan leeyahay waxay tahay ilaa ay hadda heerkaas nagama gaarin waxa aan rabnaa waxa weeye inay dhinac ka rarnaanin jadwalkii baarlamaanka doorashadiisa lagu geli lahaa bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bahda saxaafadda aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan halkan u soo istaagay muxuu ahay inaan hadlo igu qasbay waxa weeye nidaam darradii ay ku baxeen guddoonka waad arkayseen si unbay wax u qaldanaayeen waxa keliya ee baarlamaanka uu ka guuxay waxay ahayd baarlamaanka labadiisa golo walba inuu goonigiisa u shaqeeyo waxaas loo sameeyey laba golo waxa loo sameeyey waa golo kasta inuu goonigiisa u shaqeeya oo aan isku fikir noqonin oo aan isaxna marka labada golo keliya waa markii madaxweynaha la dooranayo iyo markii dastuurka wax laga beddelaayo unbay kulmi karaan oo ay muxuu ahay wada shaqayn yeelan karaan inta kale laba hay'adood waaye inay isaxaan ayaa loogu talagalay waxaa intaas ka dheer oo maanta halkan ka dhacay waxaa la sheegay muxuu ahay xeer hoosaad in wax laga beddelayo xeer hoosaad baarlamaanka aqalka sarena xeer hoosaada uu leeyahay kan muxuu ahay meeshii la yidhaahdo golaha shacabkana xeer hoosaada uu leeyahay isku xeer hoosaad ma nihin waxaa keliya la rabaa waxaa weeye xeer hoosaadka inuu waafaqo dastuurka qaladka marka guddoonkii oo aan experience lahayn iyo dad danleey ah oo doonaya inay dantooda ka fushidaan ayaa meeshii soo galay for example waxay sheegeen doorashada in wakhtigaas jadwalka noocaas lagu qabanayo waa in baarlamaanka uu ansixiyaa barkee waxa la ansixinayo waxaa weeye maalin hebel waxa aan la qabto ma la qaban karaa mase lama qaban karo in la yidhaahdo baarlamaanka qofna keligii digteed ma uu samayn karo wax uma soo qori karo waxaana hubaal ah oo dhammaan inta taqaana baarlamaan muxuu ahay ay uga ayidaysaa hal qof intuu diidan yahay baarlamaanka doorashana kama dhici karto waxna kama dhici karaan sidaas daraaddeed guddoonka baarlamaanka ayaan rabaa inaan farriintayda halkan ugu diro yaay baarlamaanka kala qaybinin yay baarlamaanka laba gruubka kala dhigin ayagana yay noqonin guddoon hal dhinac ka raran yay noqonin tan ugu muhiimsan waa taa guddoonka baarlamaanka waa xibin sharafeeda loo siiyey guddoon la doortay ma aha inay lagu danaysto oo daddan leey ah ay muxuu ahay dantooda ka fushidaan ma aha wax la aqbali karo ma aha wax haddii aad da'da lagu geeyey haddii xoogaha maskaxda ay cuslaatay waa goonigeeda takhaatiir baan u dilaynaa dad daa'iraan noo hogaaminaya laakiin waxa aan leeyahay waxay tahay ilaa ay hadda heerkaas nagama gaarin waxa aan rabnaa waxa weeye inay dhinac ka rarnaanin jadwalkii baarlamaanka doorashadiisa lagu geli lahaa